kulankani maanta lagu soo gabagabeeyay caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulada dawladaha hoose. kulanka ayaa ka socday muddo 2 cisho magaalada Jowhar waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. kulankani muddadii uu socday ayaa lagu baranayay sidii loo baahin lahaa maamulada dawladaha hoose ilaa iyo heer tuulana loo gaarsiin lahaa. qaar ka mid ah qaybihi kala duwan ee bulshada ka qayb gala kulankaasi muddadii uu socday ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabihii la isla meel dhigay. kadleerahan waan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay maadaama ay bulshadu ka faa'iideyso oo يعني فرصة بدنا أنا كجرو تاسو يعني إن لهلا وحبرشوا إلى هالتولا إلى هالجبلة عافيمات كي ودوين يعني dad iyagu isoo doortay oo aan la soo magacaabin marka waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Hirshabelle waa bogaadinaynaa. waxaan ka fahamnay maamul daadejin aan nogula sheegay meeshan wuxuu ilaahay naga waafajiyana waa ka fahamnay. waxa kamid ah in bulshada loo qabto wadci gelin maamulka oo u qabto iyo dadka ka shaqeeyay waana ogolaanay waana aqbalnay. waxaan halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulada dawladda hoose ee Hirshabelle mudane Maxamed Cali Caadle wuxuuna sheegay hoos daadejinta maamulada dawladda hoose muhiimadda ay u leedahay bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle. barnaamijkii shalay noo furmay oo aan wax iska weydiinaynay ama isbarayna sida maaragtay loo daadajiyo maamulka in uu maanta asaga oo aan islaanahay wax badan laga faa'iiday in halkaan maanta ku soo gabagabeynayna aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waana Ilaahay mahadiis. intaas kadib waxaan u maleynaa waxba la faa'iiday waxaan u diyaar garoobaynaa oo aan iswacyi gelinaynaa oo ma aragtay workshopyada loo qabana in aan fahanno qaabka aan u daadaji lahaynay ma aragtay dawladnimada oo aan u gaarsiin lahayn ilaa degmo iyo tuulo iyo ugu dambeys qoyska guriga in ay gaarto. Abubakar Maxamed Baadle Radio TV qaranka Soomaaliyeed xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.